قفا وناك وسمي سليم مر والبقو حمينا موقال كان اللي وجه استعلا ماني إلا وهبين ما نهردين موقال كان موقال عدو تنم أضومه موقال أذي قعد سطحي أذي دوبي ده ذي براه بالشدة يقول له وذاك ما دام أذي حفصة أو كجرسية درتي ذا موقال كدوبي موجين إنه دب يجي ما أنا موقال كهذا ندب يجي معه موقال كمركز دوبي وحاسد هاي ما دام حفصة أو كجرتو ويكا حماني سا موقال كي يدوب كود هذا يكو فرت دوب حتى أنا أضوبي لهنا ويجو حمالهات ماشي أنه هو إذا يمجو كتو أبي يمجو ولكن يمجو أديركي أبتي وح يجو ماشي ما لهن أيدا ولا السنة سبع قفان أدري أرنت بحرو إنا بريفت كودا ماي وحيد هذا بابليكا كوكلا بحينا كن دورنا كاحكتا ألابتادي دركاغا إي بارسبوركاغا إي جودركاغا إنو سيو كن دوري كاحكتا guys meeshaan waxa kala hadlaa qumayada korka madoobeed video soo wadin horta loo geey number 2 aniga video dub meesha ku dhaacadeen ha keensato maxaa meesha aan ku dhaay lacag $1 ka rabaa alaabtaada oo siina horta cadeen ha keensataydan cadeen ugu fadhiya hadii cadeen inay been sheegaysa taas idin cad ka gudubtaas ani xabsiga ku jiray intee imaantay station islaameed ee duubatay ka bixi marka laan waxay tir akoontiga waxa ay kama bixiyeen kartida ay ku dhahday iyo kuraajada ay ku dhahday hadee leedahay maxay ooyne maxay cala cala maxay hortiin soo istaagay maxaa soo qabanaysiin Soomaaliya hadaa dhinto ama hadii la ii waynaagtas ninkaas ka mas'uul ah isku ka tageen ninkii qolkii bila amar inuu ku gal qolaa lacag ka baxsan bila amar inuu ku galay oo baasaboorka ida kala soo bax dhahday teeda kale baasaboorada oo dadka ma waardiye ka tahay teeda saddexaad xoolahayga xaq u leeyahay waxa u baahan meesha aan sharciga horta kama weeni meesha sharciga ka jiro waa ogahay laakiin afka ma garanayo waxa u baahanaa qof caawiyo waxa u baahanaa qof wixii iga soo qaadanaagtaaseti qof walba maanta tolo leeyahay wixii ana iska xaq u leeyahay inta abaal ku sameey karo waa ku sameey inta idfiri karto baan iga sheegi karto waa iga sheegtay halaanka badan kuma dul qaado karo please wixii u baahanaa inaan helo oo si ugu dhaqsiyaha badan meel amni aheenan joogaa ma fahanteen naagta ininkeedu ay tashteen السلام عليكم اهلا وسهلا اصحابتك وحران كنالكي قبالة سجينو فشيال سو دوادا اصحابتك عصب هذا يبصوا بيرتا اذن كان سو دوادا فضلا هذا دي عصب تاي سبسكرايب كسار جنبلا الكفور لايك شير كومنت دير قلنت انت بواحدين داودا اصحابتك قالي اكو سو دوادا برنامج كينا فلقينت الصومالي الدراما الصومالي الدوما الصومالي الدنبي محاكا عصب ورarka ugu dambeeyay dagaal waali ah oo ka dhex qarxay xaafadii waalida aalada TikTok ee waalida ahayd waxa isku kacsan oo is dagaalayo Keenyada madow iyo gabar la yiraahdo Naciimo ee ugu shaqeynaysa maqaayada ee u kala kicisay maqaayada naag abaal ma lahan naag saaxiib ma gasho naag walaal ma gasho naag ina adeernimo ma taqaan naag horumarkeeda hadii ay ka talisid horumarkaaga kama talinayso dagaalkaas oo sababay muuqaal ay soo duubtay Keenyada madow gabadha Naciimo ah oo dagaal gashay oo la xiray xabsiga ku jirtay cunugeeda yar ayadoo xambaarsan oo dhafartay xabsiga sida ay sheegtay Keenyada madow waxay dhahday muuqaalkaas ayada iga codsatay inaad duubo Soomaalida u baahido dhibaatadeeda iyo dhibkeega iyo xabsiga ah ku jiro dadweynaha Soomaaliyeed si ay ugu dhiidiyaan gaarsii gabadha Keenyada madow ahayd muuqaalkeed duubtay baraha bulshada aalada waalida aalada TikTok ee soo dhigtay muuqaalka uu kala qarxay haddana waxa la dhahay muuqaalka ka bixi muuqaalkaas oo dagaalka ka bilowday hadda ka bilowday waxay sheegtay Keenyada madow in baasaboorkeeda iyo dharkeeda iyo alaabteeda laga reebtay ilaahay ceebtaha asturo hadaama qashidna ceeb dhan ma asturno gabadhaas hore waxa loo sheegay wiil baadiyo inay ka reebatay baasaboorka ee ka qaadatay sidoo kale marmarka qaar ayadoo iska kaftamayso barnaamijyo sameynayso oo dadka caanka ah inay soo qaadato meesheeda mehradeeda ama maqaayadeeda shaqada ay ku casuuntay ee tiraado kaalay muuqaal ila duuba ee dadka waxay dareensiin jirtay ama ogeysiin jirtay ee dhihi jirtay maqaayadeeda inaad ka shaqaysid marabtaa inaad shaqo ku siiyo marabtaa baasaboorka keen baasaboorka oo qof aan baasaboorkiisa haynin شقة مسينة بالله عليك على الليلة بكرينه يسابريز له ولا قوساه جبري ولا لي محيطها باسبور كله إسكا خادنا مدة كله دت كان باسبور قاد يشرع قاد دت كله قعنت وجنينه مدقم با باسبور كوبي كقاعدة ولا قرته وحص عنا يوايو باسبور كذا كوبي لقى قاعته أما باسبور كوبي كان شقة قسينا wax iska caadi ah way normal ah laakiin baasaboorkaaga keen aniga gacanta ii soo gali sida rabaa ka yeelana waa ku gumeysana madaxa kaaga istaaga madaxa hoos ii geey iga daban camlay sida aniga raba aqola dhaqma dadka raali ka noqonay ayagaba hore dad damiir leh ma ahan
marka ilaahay ceebta ha asturo Soomaali hadda aad ka dhalato wax walba waa maqlay wax walba waa arkaysaa dagaalkaas oo ka dhex qarxay Naciimo iyo Geeyada Madow wuxuu noqday dagaal loo kala safto Geeyada Madow waxaa la jirto Faadimo Naciimana waxaa la jirto Juwayriya oo ku dhiiqaysanayso Geeyada Madow maxay ku cayneen maxay leedahay madowey waa madowdahay waa fool xun tahay maxaa la dhahay waa iga maseertaa waa caddahay caddaan waa suuqa mid taalo oo kharash ay isgelinaysid laakiin madow waa yacni midab ilaahay bixiyo madow waa qurux madow ceebna ma ahan cayna ma ahan Naciimada xataa way madowdahay Naciimada ayadoo madow ina ku xadgudba maraba gabadhaas wax xun dhaho laakiin runta waa la isku sheegaa ma ogtahay wax walba labada qof soo dhaafo oo shaaric la yimaado waxa waa inaan ka hadalno fikirkeena iyo aragtideena ku darsano ama meeshan u joognaa Naciimo ayadoo madow oo ilaahay xaalkeeda og yahay ee qof kale waxay ku caynayaan yuurta madow maska madow ilaahay ceebta ha asturo horaya waxa loo dhahay daanyeer dibadiisa kuma diime ee dabadada uu ku diimaa marka ilaahay ceebta ha asturo sida aan maqashaan ama aan aragtaan dagaalka meeshuu ku dhamaan doono iyo meeshuu yacni ku ekaan doono waa isla wada arki doonaa dadka caanka ah waxay ku qurux badan yihiin markay isla socdaan markay is jecel yihiin markay is wadwataan markay yacni isku dhiidhiimayaan markay isku lamaana yihiin nin iyo naag ama laba gabdho saaxiibo ha noqdaan ama laba gabdhayna adeer ha noqdaan ama nin iyo naag isqaba ha noqdo ama nin iyo naag xiriir ka dhaxeeya ha noqdo waxay qurux badan yihiin ee ku soconayaan markay saaxiibo yihiin markay isku wanaagsan yihiin markay isku fiican yihiin dad qurux badan way wax la mid ah ma lahan laakiin markay isku dhacaan ceeb badan soo bixis waxba la isku maqarsanayo Geeyada Madow waxay tiray Juwayriya sunay cabtay waxay suntu u cabtay nin adi ceeb badan soo bixis ilaahay ceebta ha asturo inta maqalna inta ka hadlayna ilaahay ha naga cafiyo kolay ina ku dambaawno ama ina dambigooda la qaybsano marabna laakiin fikirkeena iyo aragtideena aan ku darsanayna kolay meeshaas waa la isku baaba'ay waa la isku dhiiqaystay waxba la isku mareebanin ceeb badan soo baxday waxa la leeyahay Juwayriya sunay cabtay heblaayo cunugay soo ruday heblaayo macsiyo ku jirta heblaayo saas waa inshallah waa la isla socdo laba qof saaxiibo qoftaan hadda macsi sameynaysa adina masaajid maxariiqayna waa la sameynaysa qoftaan hadda sun cabaysa adna waa la cabaysa yacni shalay waa isku faraxsanaadeen dad wanaagsan oo qurux badan oo yacni bulshada Soomaali wax qurux badan u soo gudbiyo oo dad sharaf leh aheedeen maanta marka isku dhacdeen waxa dhehaysiin dad xunaana ee dad heblaayo way xun tahay heblaayo saas waaye heblaayo way macsiyeysata heblaayo sunay cabtay heblaayo intee ka baxday yacni waxa la isku caaynayo dagaal dhoocileed waxba la isku maxeerinayo xataa la isma dhahayo Carabi ilka isgaaray labada qof way isku dhici karaan biri waa heshiin kartiin shalay dad walaalo isla nool isla ceeshay aheedeen intaas dhan lama fiirinayo kaliya waxa la leeyahay heblaayo saasay sameys waaba isku dhacdeen waxba isku reebnin la inoo wajid kale in la kala wajid dambe wiji inuu dambeeyo oo dagaalka iyo colaada iyo isku dhaca uu dhamaanayo dhan lama ah dadka caanka marka ilaahay ceebta ha asturo asxaabta qaaliga fiidiyowga inaan ku dheeraado marawa fiidiyowga xaqiisa siiya xanta idinka daba geynaya maalimahan xanta way fadhisaa way iska soo daba dhaceen